guddiga arrimaha gudaha iyo difaaca ee golaha guurtida Somaliland ayaa kulamo xog ururin ah oo ku saabsan nabadgelyada, khilaafaadka iyo amniga la yeeshay madaxda gobolka iyo kan degmada iyo sidoo kale madaxda laamaha booliska ee gobolka Togdheer. Kulankani ayaa ujeedkiisu daaranaa sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen xaaladda nabadgelyo ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale khilaafaadka. Xildhibaan Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed oo warfidiyeenka la hadlay ayaa ka warbixiyay ujeedka socdaalka ay ku yimaadeen magaalada Burco. ujeedadeedu waxay daaran tahay waxaanu la kulmi doonaa kuma koobnaano maamulka gobolka ee waxaanu la kulmi doonaa gudiyada xaafadaha ee nabadgelyada qaabilsan ee xaafad walba gudiyadeeda oo ka wareysan doono xaaladda iyo sida uu wada shaqeeyaan kulli ciidanka booliska iyo golaha deegaanka iyo maamulahan oo laf dhabar u ah adeega uu kulli shacabka u hayo bileysku oo hadaan iyagu aanay update gareyn ama aanay la shaqeyn ciidamada nabadgelyada aan wax badan u suura galin runtii kuwaasaan la kulmi doonaa adeegyada ay hayaan iyo fahamsan nabaddu waxay tahay waxaanu la kulmi doonaa oo aan questionnaire su'aal ka buuxin doonaa shacbiga magaalada meelo kala duwan ayaan xulan doonaa si aanu u daadajino iyaga laftooda fahamka inay fahamsan yihiin gudiyada xaafaduhu inay shaqeeyaan oo active yihiin sida isugu xidhan shacabka iyo gudiyada xaafadaha laftooda marka qiimeyn ballaaran kulli runtii buug baan ka sameyn doonaa waana la wadaagi doonaa wixii dambe gobolka. xogayaha maamulka gobolka Togdheer wali khayr iyo taliyaha ciidanka booliska gobolka Axmed Ali Shabeel ayaa dhankooda warbixin ku saabsan xaaladda amniga gobolka ku siiyay mas'uuliyiintii ka socday guddiga arrimaha gudaha iyo difaaca ee golaha guurtida. saaka waxaana soo booqday oo noogu yimid kormeer guddiga arrimaha gudaha nabadgelyada iyo khilaafaadka golaha guurtida Somaliland. socdaalkooduna wuxuu daaran yahay in ay xogogaal u noqdaan nabadgelyada guud ee gobolku sida ay tahay haddii wax khilaafaad ka jiraan haddii dhibaatooyin ka jiraan inay ogaadaan marka waanu u warranay haddii alla yiraahdo labada cisho gudahoodna qoraal baan ugu soo gudbin doonaa wixii sanadkan 2018 wixii ama dambi dhacay ama dhibaatooyin ka dhacay gobolka. waxaan aad ugu hambalyeynaa boqoshada ay noogu yimaadeen oo ku soo dhaweynaa gobolka Togdheer wixii warbixina iyo wixii ay u baahnaayeen anagu gobol ahaan iyo degmo iyo ciidanba booliisba waanu siinay meelaha kalena de way madax banaayeen way mari karaan ciday doonayaan anaguna gacan baanu ka siinaynaa dhinac kasta ay u baahan yihiin waanu ka gacan siinaynaa. Shucayb Xasan Ismaan Shucayb Kingish Kalson TV magaalada Burco.